السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا waxaan ku sheegi doonaa duco wanaagsan hadii aad samayso Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax walba ku fulinayo aan ku sheegi doonaa. Ducadaani gaar ahaan waxay qusaysaa dumarka Ilaahay subhanahu wa ta'ala madaleeska ka dhigay oo adiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala madalees inuu ka dhigay ma ogtahay oo adiga miyaad soo daabatay Ilaahay subhanahu wa ta'ala sirtiisa qarsoon oo ah Allah subhanahu wa ta'ala waxyaalaha oo qarsaday oo ghaybka ah. maxaa yeelay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay laa yaruddu alqadaa illa ad-du'aa. Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxyaalaha oo qoray oo qadaha ah oo xukmiga kagama laabto oo kama noqdo ilaa baryo mooyaane. waxaa laga yaabaa adiga ku qorneed inaad geeriyooto inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala cimrigaada ku ziyaado liajli ducaa adigoo duceystay darteeda. waxaa laga yaabaa adigoo ku qorneed inaad maanta wax cun aad oo yar aad hesho oo ama aragtaa ku qorneed oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax zaa'id oo ku siiyo berito. maxaa yeelay ducada ayaa gidinaysa waxa soo dhan. laa yuruddu ducaa laa yuruddu alqadaa illa ad-ducaa. Ilaahay subhanahu wa ta'ala kama laabta qadahiisa uu qoray duco mooyaane. haddaba ducadan aan ku sheegi doono waxaad ka istifiidi doontaa waxyaalo wanaagsan oo badan. ducooyinka waxay leeyihiin meelo loo adeegsado. tani aan hadda ka hadli doono waxaa loo adeegsadaa dumarka Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ka dhigay madaleeska ah oo isdhahayo cunug ma si dhali kartiin oo ma dhali kartaan. maxaa yeelay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay fi suurati Hud wuxuu ku leeyahay gabadhii nabiga Ibrahim alayhi salaam oo qoway ayaa hadashay waxay tiraahday yaa waylata alidu ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib. war shaykhani ninkan duqoobay oo ba'liga ah oo aad arkaysaan ee anigoo ma aragta ajuuz oo duq ah miya uur qaadayo cunug dhalayo tani waa la yaab ay tiraahday. Ilaahay subhanahu wa ta'ala taydii ayda la yaabaysay Ilaahay muxuu sameeyay aydi ajuuza sheekhi nabiga Ibrahim alayhi salaam xogaa da iska ah inuu Ilaahay cunug siiyay. marka Allah subhanahu wa ta'ala inuu wax ku siiyo kuma xirna sanadkaada ama kuma xirna waqtiga aad gaarayso kuma xirna. Allah hada ugu talagalo adigoo 70 jir ah 80 jir ah ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala cunug ku siinaya. haddaba ducadan waxay qusaysaa waa duco gaaban haddii aad akhrisato Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu ku sii. waa dadku waxaa la hadlayaa caruurta jecel oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ilmo siiyo jecel ayaa la hadlayaa. haddaba ducadaani ka faa'iideysta waa qiso yar oo nabiga Muusa alayhi salaam maalin maalmaha ka mid ah nabiga Muusa alayhi salaam waxa u timaaday habeenay oo madalees ah. markaas wuxuu tiri Muusa rabbigaada ii bari madalees baan ahay. markaas nabiga Muusa alayhi salaam rabbigiisii gacanta u taagtay oo bariyay oo soo laabtay marka uu bariyay. markaas wuxuu yiraahday Allah subhanahu wa ta'ala waa ku bariyay laakiin nasiib daro waxa ku qoran inaad madalees tahay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ii xaqiijiyay oo ii sheegay madalees ayaa tahay ayaa ku qoran ayuu yiraahday nabiga Muusa alayhi salaam. gabadhii way iska laabatay way noqotay muddo kadib iyo waqti kadib nabiga Muusa alayhi salaam wuxuu arkay gabadhii xumbaarsan cunug xumbaarsan ayuu arkay. markaas wuxuu yiraahday cunugan xagee oo ka yimaaday xagee aad ka keentay waa tii adiga oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku qoray madaleeska ahaa oo ina arinta ahaatan Ilaahay ku qoray baa aheedeen. markaas nabiga Muusa alayhi salaam rabbigiisii ayuu u laabtay ayuu arintii weydiiyay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiraahday mar walba aan u qoro madaleesnimo aan u qoray waxa ka hormartay naxariisteedii ayaa ka hormartay iyo awoodeedii ayaa ka hormartay wixii aan qoray oo loox maxfuudka aan ku qoray taasi ayaa ka hormartay. oo maxaa yeelay waxay dhihi jirtay ama ay dhahaysay yaa rahiim yaa rahiim yaa rahiim yaa rahiim. waa halka kalaam Allah subhanahu wa ta'ala gabadhaasi oo uur ku siiyay cunug ku siiyay weeyaan. maxay dhahaysay yaa rahiim yaa rahiim. nabiga Muusa alayhi salaam Allah subhanahu wa ta'ala markii hore wuxuu u sheegay in gabadhan madalees ay u qorantahay muddo kadibna ayadii cunugii oo wadato. muxuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo bedelay wuxuu bedelay wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala oo u qoray oo u xukumay ayuu bedelay. maxaa yeelay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay laa yaruddu alqadaa illa ad-du'aa.
إله سبحانه وتعالى كما لابتو قضاها وحيال الله سبحانه وتعالى كو حكم يكو قري دعمه يعني الله بري الله سبحانه وتعالى وحكو قرن لباتها دي كو قرنت إله سبحانه وتعالى بشو كو بدلي هدي أي كو قرنت بري إنا تطلمته وإله دعات ويديسته الله سبحانه وتعالى إذن كيسا إله كو قرني عمرك هذا هدي أي كو قرنت بري إنا تخسارته كان عسياد كشخيني ساي أتخسارته إله كو قري دعو هذا هدي أي بدنتها إله سبحانه وتعالى وحالا أركا أي لا أركا إنه إله قناع سيقاد كو زياديو كو كرديو وحول بقى جعشين الدعوة إلى سبحانه وتعالى وكغفر فريدون الله سبحانه وتعالى محايا لي نبي الله أيوب عليه السلام أسيقو نبي شرف بدن أو إله سبحانه وتعالى إيه كري إلهي عافي حدنا اسكسي سبره وآمصنا لأن إنه إله سبحانه وتعالى الدعوة أقبلها وأوغا إله سبحانه وتعالى الدعوة إنه أجيبها لأنه هو نبي لكن هو آمصنا هو سبره أيضا والصبر واحد كو صبري كرتو كو صبر هذا كو صبري كرينا ربك قعنت وتاغو له إلهي أرنتانا عيساتو إلهي يفوضي له الله سبحانه وتعالى وكفوضينا هذا وحن اسكو أكنا كلمة ده يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم وحد ليس ثلث من الليل هبينك مركز سدح لو ديغو ماشي ودن بيسو أما سدح ساعة ودن بيسو ayaad ku akhrinaysaa 3 saacaan dhihin habeenkii markaa 3 loo qaybiyo qaybta u dambayso ayaad sidaas dhigaysaa habeenkii imisa saacadood ayay ka kooban tahay waxay ka kooban tahay 12 saacadood 4 saac horo 4 saac dhexda iyo 4 saac dambo 4 saac dambo markii la gaaro ayaa waxaad leedahay يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم إلا أنت كاري كرتو كن لو كن شم كن بقل لو بقل إلا أنت كاري كرتو أديسا الله سبحانه وتعالى وحقوسين يا عنق قرح بدن يجبر قرح بدن ويل قرح بدن الله سبحانه وتعالى وسهليا ونكو فوضينا هذا بجارسي ولالك أم ولا شاهد لدعشة وناجا أرنتانين أي هيسطو إله سبحانه وتعالى إنه كقاضو إلى إلينكيس إن شاء الله مروجد يول والكو هيسو الملأنت أو عرورت إنه لو وبصدو الله سبحانه وتعالى وقصينا انتبه سيدو كلوحانا إجابي استغفار تنبضي استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ده محايل الله سبحانه وتعالى وحوي له النبي الله نوح وحد كلها استغفروا ربكم إنه كان غفارا ما يوحوي النبي الله نوح وحان ضحي ربينا استغفار ضربضة الله سبحانه وتعالى وامد دنبيه رافو أو غفار أهوي يعني حديث ذا استغفارتي استغفر الله ليلة محار عايو يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا مركواكا إلى سمد روبك كينيا روبك سرقو برواقصينيا سيدوك الإله محوقصينيا بأموال وبنين إله حقوسينا علمو يمال أي قصينا بيرو أي قصينا وبيال أي قصينا استغفار تعيدنا إله سبحانه وتعالى علمه وسالي كرا يا رحيم كاشو استغفار تنكاشو الله سبحانه وتعالى وقصينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.